barwaaqeeyo ciideeda caafimaad ku gaarna ciideeda allow ciidan ciideeda ciideeda cimri dherer barwaaqeeyo ciideeda caafimaad ku gaarna ciideeda ciida iyo faraxeeda cafka saamaxaadeeda cana iyo nabadeeda caadilkeen inagu siimay caafimaadsan nagula ciida ciida iyo faraxeeda cafka saamaxaadeeda cana iyo nabadeeda caadilkeen inagu siimay caafimaadsan nagula السلام عليكم ورحمة الله تعالى ciida وبركاته وعنا ونسن دمان داودياشينا halkan nagala socotaan idin xasuusi waa janalka xabiib malaga fashiyan aniguna waxa ay walaalkiina ayub afra ii sheegay maanta waxayna tahay waa maalin aad noogu qiimo leh waa maalinta afraad oo Ciidul Adha ii sheegay halkan waxa u imaanay inaan yacni asxaabteena farxadda aan taagno aan dhaxgalno bulshooyinka Soomaaliyeed marka waa ka insha Allah nala socda halis dhiina yacni xabiib malagu maqay xabiib uu joogaya marka waa ka nala socda haatan waxaa soo qabanay ninka ugu shidan ee beerta banaadir walaal ku soo dhawo janalka xabiib malik walaal waa dhowahay aad iyo aad brada magacii waa Raahul maanta meeshan la soo booqanay maasha Allah waxa halkan ka salaamayaa inta aniga jecel aad weyn ii sheegay walaal macaan maanta saan ognaa waa maalinta afraad oo Ciidul Adha marka sidee kula tahay ii sheegay farxadaada maanta I know mana soo koobi karo xamaasadaada macnaha ii sheekeynaya xaywaalne xamaasadeeda mid aan la soo koobi karin maasha Allah waayo waxa meeshan iska keenay farxad iyo xiriirin walaaltinimo meeshan iska keentay sawirada maanta meeshan iskaga qaadina waxay noqonayaan mid qof jecelkiisa u dirsanayo qof waalidkiisa u dirsanayo adiga waa dadka kala yihiin aad weyn janalka xabiib malaga fashiyan waa ku dhawahay insha Allah magacaaga saddexan magacaygu saddexan Amar Maxamed Xuseen Axmed walaal saa ognahay horta waa maanta waa maalinta afraad Ciidul Adha kulay waa walaalahayna u jirta farxadooda ma la soo koobi karin marka walaal ku soo dhawo janalka farxadaada wallaahi maanta farxadeeda lama soo koobi karo macnaa sharaf ay ii tahay inaan ka soo muuqdo janalka aad u faraxsan wallaahi farxadeeda lama soo koobi karo ilaa calaashan magac haddaan qalda hataa malaliyaab kara calaashan macnaa maanta farxada ii tahay macnaa waayo wiligayga inaan janalka soo muuqdo waa maalinka igu horeysa inaan ka soo muuqdo janal marka halay u qaato marka haddii aan gafataa macnaa yaa lay qaban macnaa marka aad u mahadsanaa asxaabta waxaan salaamayaa saaxiibkayga Raawul waxaan sidoo kale waxaan halka ka salaamayaa sidoo kale macnaa kabtan Ayub adina oo salaama iyo asxaabteeda kale aad aan jeclahay hal ilaa ma soo koobi karo laakiin waxaan aad waxaan ku soo gabagabeynaa waxaan meeshan ka salaamayaa jecelkayga oo iga fog magaca janalkan waa salaama kulli walaal ku soo dhawo janalka xabiib malik waa ku dhaw walaal salaam buu magacaagu saddexan Xuseen Ciise waa ii sheeg saa ognaa waa maanta maalinta afraad oo Ciidul Adha marka walaal farxadaada maasha Allah والله waxaa leeyahay horta asxaabta waxaan horta janalka xabiib malik asxaabta waxaan horta waa salaamaya waxaa leeyahay asxaabtan dad oo qalbi wanaagsan waaye oo niyad wanaagsan oo asxaab mina oo walaalnimada oo kubinta ma fahanti asxaabay dadkan ayaan alu soo yaaco subscribe-ka wax kasta dhankiina ma fahanteen dadkan wallahi hadda maanta meeshan hadda kulnay saas ay tahay dad mina hadda waxay qiimo badan dad mar iska seeni maanta waxaa la qiimo badan asxaabi hadda waa nisi salaama wareysiga iyo damaashaadka waxaan ku jirnaa maalinta afraad ee Ciidul Adha ayaa ku jirnaa markan waxaan la joogay gawar Soomaaliyeed oo sida ii sheegtay nimankiisa walaal magaca ku bilaabay magaceena ku bilaabay Ansaar Xuseen Cali Ansaar Xuseen degmada ka timaade xakiim degmada Wadajir ay soo arataa maalinka afraad idoo jimcadeed hadan Ciidul Adha ay tahay farxadda iyo damaashaadka beerta oo timaade ma sha Allah aad iyo aad u faraxsanahay alxamdulillah aad iyo aad u faraxsanahay maalinta afraadna beerta banaanka saaxiib biskud ma taa masaaxib xalwa taa حول أنا صاحب هلم صاحب البسكوت وصاحب العجاء صاحب الفلوس هتعملها أيوة هذا البنت واحد بنت تجي تحب الفلوس وجوده كلي الفماني ماني واسكتغانينه أوكي وحارة أصحاب قرابتنا هلك السلام كل أنتوا حتسامعنا هاي أبو يوك إن ولا كل أنت أصحاب كل جين على طول السلام أوكي فارك ودم بيئك أصدقائنا وحارة قفك كلي عرفت أنا ليش على قبضة أضمك إيش شاكر هلك السلام تكاروا
وصح رزاقد إلهي واسع markaan waxaan la joogo wiil ka mid ah dhalinyaro Soomaaliyeed asigana beerta xuriyada damashad u maaday walaal magaca bilaabay والله مقعي بسم الله محمد ليمان حسن maxamed liibaan ku soo janaak xabiib maalik والله اني جو دقن ما شاء الله اسكو باشالونا مالين عيد الاضحى ومالنت فرحه بدنيد ما شاء الله okay degmada ka timaado maasta دركين لي darkeenley halkaan ana idin salaamayo suldan xabiib okay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maanta maalin afraad ku taas maalin saddexaad adiga dadka kala duwan yihiin والله اني وانا waxaa maalintii afraad ay tahay maanta afraad ku taas ما شاء الله buskudii xalwa ka waran iyo hilib saac cunto نيو بسكت حاول ورتا نيو هذا بسكت كنا علوش اي قبا واشوف ما هيلي واحد hilib waa cunto okay qaraabada halkaan ka filan asxaabtaada والله سعبت بقول والسلام وياه qof qaas kugu ah oo ama laabta iyo qalbiga ku tahay halkaan waxaan rabnaa salaan ugu dirto والله اني هو يقرا ساعه وشا okay aad iyo aad u mahadsantahay xabiis Umar Xasan degmada ka timaado degmada wadaaga ka imaade degmada wadaag ma sha Allah saad aragtaa ciidul arafada maalintii afraad ee maanta jimco ee galabta beerta banada oo timaado farxadaada ما شاء الله فرحتي فرحت لو سoo qoob karmaan aad iyo aad u faraxsanahay ما شاء الله ciid farx oo insha Allah ما شاء الله ciid wanaagsan Allah noo wada dhigo anaga dhan gabigeena faamino ما شاء الله aniga waa faraxsanahay okay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka hilibka dhargay maanta ama dadkii oo buskut xalal basbaarka garaacaya والله dadka hilibka xisaabsanaa ما شاء الله hilibka dadka dagay barka aaga oo ka garaacaya kamid tahay okay halkaan ka salaamay 3 ilaa 4 qofood ما شاء الله waxaan ka salaamayaa hooyaday dhashay ما شاء الله mar Usmaan Xasan ilaahay ku darnaaday xaaskeyga Muna Idris Usmaan aan ka salaamayaa ما شاء الله ilaahay ku darnaaday asxaabteyda dhan waa wada salaamayaa meel walba ay joogaan oo soo sugan yihiin okay waxaan amaleey doonaa tiim xabiibin inay ka qaadaan insha Allah taala aad ma santahay markan saan u jeedo roob ayaa soo socda oo magaca balaa ku soo dhaw janaak xabiib maalik waa ku dhiga barada aad ma santahay ciid wanaagsan wiici waa Ali Xasan Ali ما شاء الله على حسن wanaagsan oo aan degmada ka timaado walaal degmada Darkeenley ما شاء الله qof shanaad inay watahay walaal oo herdalkeena bari herdalkeena halkaan waan ka salaamayaa saad u aragtaa saax farxad maanta afraad ee ciidul adha aad iyo ma santahay barada aad ugu faraxsanahay yawm ciid Arafa maanta afraad anigu ciidayo waxaa meeshan u maaday dadka farxadda ciidina la qaato ma sha Allah waxaan rabaa in aan ku weydiiyo makaliga timaado asxaabka soo raac ma badan family aan hay dad badan aan hay ma sha Allah okay halkaan asxaabta family-ka inaga salaanta ودمان والسلام يا وها وقريسو هويدي معان عجيب حسين أحمد أمان فميدي يحاسكي مرودي انتاك سلامة فلسطين ربيع عبد الله أمان هذا والسلامة سومالي أمد المسلمين أمان نيلو بيجوان موقي مغل في انتقال والسلام اوكي أنا والسلامة انت حبيبي انك خادونا مولاي أصحاب والله بالله الله خير أي مدافع انتنا مولاي والي هرمر قد كان أروي قد كامل كعاد سحاب قد كامل كعاد قد كاس لو الراس أنا أخليها كيني أخلي نجار وحول ناخذ إنها ميز تدو أهوس قالوا يجي قبل الإجراء وراه لي بني والله بالله لي بني والله أصحابته عليك أرض الرابع كسوز جادي سيد وجدنا حبيب مالك ميوزك وسط كذا ستور دحنت الخير كذا إنكسل عليه دحنت خير كذا من أصحابته وحاسس سعودون إن شاء الله تعالى وحاسس سعودون وريس سجن دمشق سعودون إن شاء الله تعالى وصاحب كنا حبيب مالك كان قلت جودي سو قارني برنامج البحي جلك حبيب الفشال سلامة يو مناسبة عيد الأضحى أفراد برنامج البحي جلك حبيب مالك وبدين ضد بدن أيامات مع شخص السيل وجوجان بيرت بنادم إن شاء الله تعالى صاحبك حبيب مالك له عيد ونايسان جمع ناس مالك برنامج مش كلام حقيقي دار كم دونه وصاحبك حبيب مالك له جلك أفراد لو كل كيس سبسكرايب وصار لايك شير كومنت هذا ما سنتين